mid ka mid ah asbaabaha bini'aadamku uu ku guulaysan karo waxaa ka mid ah bismillaahir rahmaanir rahiim qof kasta oo bini'aadam nolosha wuxuu jecel yahay in uu guulaysto ayuu jecel yahay guushu waa shay ama wax ku yimaada wax fara badan oo kala duwan ay guushu ku imaan kartaa laakiin mid ka mid ah asbaabaha bini'aadamku uu ku guulaysan karo waxaa ka mid ah xiriirka iyo calaaqaadka uu leeyahay iyo inta qof uu yaqaano iyo saaxiibada uu leeyahay oo aadka u badan ayay runtii ayay ku xiran tahay mar kasta oo qofka uu leeyahay dad fara badan iyo connection fara badan fursadiisu way ka badan tahay waxa la yiraahdaa waraa kull calaaqatin laha fursa yani xiriir kasta ee aad samayso dad kasta ee aad barato waxaa ka dambeeya fursad ayaa ka dambaysa fursadaasu adiga ama ogaaw ama ha ogaan ha soo degdegto ama yeysan soo degdeginin sidaas darteeda qofku waxaa laga rabaa inuu noqdo qof awood u leh inuu dad fara badan iyo calaaqaad fara badan oo barto maadadiisa uu ka samaysan yahay iyo shakhsiyadiisuna ay noqoto shakhsiyad soo jiidasho leh ee attractive mar kasta shakhsiyadaadu ay noqoto shakhsiyad soo jiidasho leh oo attractive oo dadka soo jiidata waa markastoo awood aad u leedahay dad fara badan aad barato markastay awood aad u yeelato dad fara badan inaad baratana waa markastoo nolosha aad ku guulaysato Linus Pauling ayaa waxay leedahay si aad u hesho fikrad wanaagsan hal fikrad ee wanaagsan si aad u hesho waxaad u baahan tahay inaad fikrado fara badan aad aruuriso taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay si aad u hesho saaxiib wanaagsan hal saaxiib oo wanaagsan waxaad u baahan tahay saaxiibo fara badan inaad yeelato calaaqad fara badan inaad yeelato dad badanna inaad samayso waxyaabaha kale oo aadka khatarta u ah oo xiriir aad ku samayn karto waxaa ka mid ah in shakhsiyadaada aad ka dhigto shakhsiyad xoog furan oo dadka kale diyaar u ah wax allaale wixii ku jira inuu siiyo diyaar u ah